cuntadan yar ee aad maalin kasta cunto waxay si toos ah dhagaxaan ugu samaysaa kelyahaaga. Doorashada cuntooyinka ee aan maalin kasta cunayno waxay raad toos ah ku leeyihiin caafimaadka kelyaha, maadaama kelyuhu yihiin xubnaha sifeeya sunta jirka, dhiiggana ka saara sunta. Marka waxyaabaha qaarkood ay ku ururaan kaadida iyadoo biyaha ku jira jirka ay yar yihiin, waxay bilaabaan inay waxyaabaha yaryar isu tagaan, kadibna ay noqdaan dhagaxaan kelyaha dhexdooda ku samaysma. Cuntooyinka maalin kasta la cuno badankoodu waxay leeyihiin faa'iidooyin, balse haddii si xad dhaaf ah loo isticmaalo iyadoo aan biyaha jirka ku jira aysan ahayn biyo ku filan qofka, ama qofku uusan biyo badan cabin, waxay sababi karaan khatar heerkeedu aad u sareyso. Cuntooyinka ay ku badan tahay maadada la dhaho oxalate waxay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya ee kelyaha ku abuura dhagaxaanta, gaar ahaan nooca loo yaqaano calcium oxalate. Waxyaabahan marka ay kaadidaada dhexdooda ku kulmaan ama waxay noqdaan maadada calciumta, markay ku kulanto waxay si toos ah isu qabsadaan, waxayna dhaliyaan dhagaxaan aan baabaa'ayn, kuwaasoo si tartiib tartiib ah kelyaha dhexdooda ugu weynaada. Isticmaalka joogtada ah ee cuntooyinkan oo dadku inta badan u haystaan inay yihiin kuwo caafimaad ahaan aan dhib lahayn ayaa ah sababta ugu weyn ee dhagaxaani ay u yimaado. Si kastaba, cusbada ama sodiumta badan ee maalin kasta lagu daro cuntada ayaa saameyn weyn ku leh dhagaxaanta kelyaha. Sodiumta xad dhaafka ah waxay kelyaha ka xirtaa inay kaadida ku sii daayaan calcium badan, taasi oo si toos ah u kordhinaysa fursadda ay calciumta ama dhagaxaantu ku samaysan karto. Inkastoo cusbadu ay tahay wax inta badan dhadhanka cuntada muhiim u ah, laakiin maalin kasta in la cuno cunto cusbadu ku badan tahay waxay horseedaa khatar weyn oo dhagaxaan samayn kara. Borotiinada sida hilibka gaduudan, digaaga ama ukunta maalin kasta in la cuno tiro ka badan tiradii loogu talagalay waxay xitaa beddelaysaa kaadidaada. Borotiinku wuxuu kordhiyaa heerka wax la yiraahdo uric acid in aashito ay yeelato kaadida, iyadoo sameynaysa deegaan aad ugu wanaagsan inay dhagaxaantu ku samaysmaan, waana wax loo yaqaano uric acid stone. Wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa heerka citrate-ka oo ah maado dabiici ah oo ka hortagta in dhagax kelyuhu ku samaysmo. Marka uric acid-ka kugu batay iyo citrate-ka kugu yaraaday waxay keeni karaan in labaduba in kelyo dhagaxaan kugu samaysmaan. Vitamin C-ga xad dhaafka ah, gaar ahaan marka kaniiniga la iska qaato maalin kasta, isaga laftigiisu dad badan ma oga wuxuu keeni karaa dhagaxaanta jirka. Waxa uuna ku reebaa vitamin C-ga xad dhaafka ah wuxuu isu beddelaa maadada oxalate. Maadadan waxay kordhisaa sidaan hore kugu sheegay in kelyaha dhagaxaan ku samaysmaan. Cabitaanada aashitada leh ee cuntada marka laga dhargo la iskaga dejiyo iyaga sidoo kale waxay leeyihiin sodium iyo maado la yiraahdo phosphoric acid, labadooduba waxay keenaan dhagaxaanta kelyaha. Cabitaanadani inta badan waxay keeni karaan in aashitadoodu maadaama ay badan tahay in dhagaxaantu si yar u samaysmaan, kadibna dhagaxaan isku beddelaan. Dadka inta badan xataa kelyaha ama laga qalo dhagaxaanta ama kelyaha laga bixiyo oo kelyadu ay dhimato, waa dadka inta badan caba cabitaanada aashitadu ku badan tahay. Raali noqdo. Biyo cabidda yarar, qofku inuu cabo wax ka yar 2 litir ama 1 litir oo biyo wax ka yar maalin kasta, wax ka yar inuu cabo laftigooda waxay keeni kartaa in dhagaxaan ku samaysmaan kelyahaaga. Marka jirku uusan lahayn biyo ku filan, qofka uusan cabin calcium oxalate-ka ayaa badanaysa, taasna waxay keenaysaa fursaddii dhagaxaantu ku samaysmi lahayd inay ziyaado. Jawaabta marka inta badan aan qodobka kaga hadlaynaa cunto yar oo haddii aad si joogto ah u cunto dhagaxaan kugu samaysmaysa. Cuntadan inta badan maalin kasta aan cunno waa caan, inta badan waxay ka qayb qaadataa in dhagaxaan ku samaysmaan kelyahaaga, waana wax loo yaqaano spinach ama koostada. Haddii dhagaxaan kelyaha ku samaysman yihiin, koostada inaad joojiso ayaa loo baahan yahay. Koostadu waxay ka mid tahay waxyaabaha cuntada caloosha jilciya, haddana marka aad si xad dhaaf ah u cunto ayaa laga hadlayaa koostada laftigeeda. Sidoo kale yogurtka dadka sida xad dhaafka u isticmaala waxay u badan tahay in dhagaxaan kelyahoodu ay ku samaysmaan. Waxaan rajaynayaa marka cunto kasto inaad si dheelitiran u cunto, cunto kasto inaadan iska badin. Wax kastoo la iska badiyo dhibaatadooda ayay keenayaan. Inaad maalin kasta aadan koosto cunin ayaa loo baahan yahay. Koosto cuni kartaa, calooshaada ku jilci kartaa, laakiin maalin kasta koosto inaadan cunin, maalin kasta inaadan yogurt cunin, maalin kasta inaadan waxyaabaha aashitada leh inaad ka fogaato. Sidoo kale cabitaanadaas waa kuwa ugu khatarsan.